agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye oo bulshada la wadaagay warbixinta maalinlaha ah ee xanuunka COVID-19 ee dalka ayaa ka warramay tirada ku soo korodhay xanuunka corona inta u dhimatay iyo halka ay marayso xaaladda cudur dhaliyaha coronavirus ee dalka Soomaaliland. 40 saacadood ee u dambeeyay waxa soo kordhay bukaanno ah 19 bukaan oo ku soo kordhay xaaladaheennii hore. marka 19 qof oo cusub ayaa laga helay 48 saacadood u dambeeyay taasi waxa ay ka dhigaysaa wadarta guud ee xanuunka laga helay ama tirada guud ee xanuunka laga helay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan 87 qof ayaa laga helay xanuunka. 19 qof ee cusub waxa ay isugu jiraan oo ay u kala qaybsamaan da'ahoogu da'da 10 jir ilaa 20 jir waa hal qof, 20 jir ilaa 30 jirna waa laba qof, 30 ilaa 40 jirna waa hal qof, 40 ilaa 50 jir waa afar qof, 50 ilaa 60 jir waa 6 qof, 60 ilaa 70 jirna waa 5 qof. marka la eego meelaha ay ka kala yimaadeen dadkani waxay ka yimaadeen bukaanadani 13 qof waxa ay degan yihiin gobolka Maroodi Jeex, 6 qofna waxa ay joogaan ama lagaga helay gobolka Awdal. dadkaasi waxa ku jira 6 qof oo ah dadkii ka yimid dhawaan wadanka Djibouti ee karantiinka ku jiray. 6 qof oo ka mid ah ayaa laga helay xanuunka. marka la eego dadka 11 qof oo ka mid yihiin waa rag, halka 8 qof oo ka mid yihiina ay haween yihiin. waxa iyaduna jirtaa in tirada ka bogsatay cudurku ay tahay 8. wadarta guud ee dhimashaduna iyaduna waxay maraysaa 8 qof iyada oo 48 saacadood ee u dambeeyay ay dhimashada ku biirtay 2 qof. waxa iyaduna tirada shaybaadhka guud loo sameeyay kor ayay u sii socotaa, waxaanay maraysaa 586 qof oo laga qaaday shaybaadh iyada oo aad arkaysaan in muddadii ahayd ilaa toddobaadka ama 10 cisho mishiinku shaqaynayay laga qaaday dad ilaa 400 oo qof iyo ka badan ah. waxa iyaduna si habsamiya u socotaa hawlihii ay waday wasaaradda horumarinta caafimaadku ee lagu eegayay dadka inooga imanaya xuduudaha kala duwan ka soo gelaya iyaga oo la socda baabuurta ganacsiga ee iskaga gooshaysa Soomaaliland iyo wadamada ay jaarka yihiin. dadkii ugu dambeeyay ee 48 saacadood ee u dambeeyay laga eegay calaamadaha xanuunkuna waxa ay marayeen 4841. waxa muuqata oo cadaan ah oo la wada arkayaa inuu xanuunkii wali uu jiro uu sii kordhayna. xanuunkani ma laha dawo, waxa uu leeyahay ka hortag. waxaan doonaynaa dadku inay qaataan talooyinkaanu soo jeedinayno. waxaan kula dardaarmayaa dadkayga inay foojignaadaan. waxaan kula dardaarmayaa dadkayga inay qaataan talooyinkan halkan uga soo gudbinayno. waxaanu leenahay hagalaafanina dadkeenna iyo naftiinaba. waxaan aad iyo aad ugu celinayaa in la qaato talooyinkaanu sheegayno, in guryaha la joogo, in nadaafadda la joogteeyo, in la qaato afxidhka iyo galoofiskaba ciddii baxaysa. dhammaan dadka waxaan kula dardaarmaynaa inay talooyinka qaataan. xanuun dhaliyaha coronavirus ayaa Soomaaliland ka hasiibay 87 qof waxaana u dhintay 8 qof halka ay ka bogsadeen 8 qof isla markaana xaaladooda lala tacaalayo inta ka soo hadhay labadaasi tiro.